الله الرحمن الرحيم هشرح هنا جوجل فورمز loo isticmaalo waxaan kasoo furaynaa google aan ku qoraynaa google forms kadib waxaan ku furaynaa google waxaan dooranaynaa blank waxaa jira form fara badan oo uu leeyahay oo design template ah halkan waxaan ku qoraynaa topicii kulli waa shaqaynayaa hadduu dhamaaday tusaale ka mid ah su'aalaan soo qaadanay waxaan soo qaadanay title-kii halkan waxaa ku qoraysaa introduction title uu leeyahay ama privacy title uu leeyahay ama other information kala inaad dadka fahansiiso su-aashu waa inta ka bilaabmaysa laakiin ma raba inaan su-aashu waa inta ka bilaabo aniga waxaan rabaa inaan meeshan ka bilaabo inta waxa ku qoran waxa lagu shaqayn doono dhan su-aalaan kusoo dari karnaa questionaan soo import garin karnaa oo excel ka soo qaadi karnaa title cusub aan soo gelin karnaa sawir iyo video aan soo gelin karnaa section aan rabo markaan soo geliyo haddaan rabin waa dhijin karaa oo waxaan dhigi karaa isku dhij title aan soo gelin karaa section soo geli section markaan soo geliyo waxaan ku qoraa markaa waxaan qorayaa waa demographic information sorry demographic information sharaxaad waa qori kartaa naftigeeda oo waxa uu ka hadlayaa dii kale oo ka tegi kartaa tusaale waxaan leenahay inta waxaan ka hadlaynaa genderka waxaan ku qoraynaa markaa inta ku koobnaa halkan waxaa noo saaray marka multiple choice kan labaad waxaan ka dhigaynaa age-ka marka waxaan ka dhigaynaa hadda automatic wuxuu noogu bedelay short answer inkastoo halkaas uusan bedelin laakiin markaan ka dhaafo bedeli doonaa ana short answer kama rabno wuxuu leeyahay marka sectiono fara badan oo jawaabta aad dooranayso oo aad ka dhigi karto paragraph multiple choice checkbox drop up wixii marka aad ka dhigi karto kan waxaan ka dhigaynaa multiple choice halkan waxaan ka dhigaynaa 20 ilaa 30 enter 31 ilaa 40 enter 41 ilaa 50 iyo above iyo qofka uu yahay 50 su-aasha kale saddexaad waxaan ka dhigi karnaa educationka waxaan u samayn karnaa inaan ka dhigno drop down list oo hadhow wuxuu noo soo bixi doonaa si double down primary secondary iyo degree iyo master marka section labaad aan ku dari karnaa oo u bixinayna objective ka sectionkeena uu leeyahay kadib waan keeni karnaa su-aashaas aan dhigi karnaa oo jaarkoolka waxaan ka soo qoray jaarkool ahaa inay impact samayso environment kadib waxaan keenaynaa markaa multiple choice aan keeni karnaa oo dhigi karnaa agree to agree tusaalaha dabaatana leenahay disagree neutral agree strongly agree marka taasaan ka dhigi kulna waa tusaalahan ka horreebay inaad ku fahantaan markaan dhammayno waxaa leenahay publish automatic wuxuu leeyahay manage gareyn anyone waa arki karaa arwa ka reeb waxaan dhigi karnaa qof kastoo gmailkiisa aan u diri karaa markaan mar rabo waxaan ka dhigaynaa si kama jamaca waxaan soo qaadaynaa linkiga waxaan u diraynaa markaa dadka aan rabo inay arkaan dadkaasaan leenahay soo buuxiya tusaale hadda anaa soo diraya oo waan buuxinayaa kadib aan soo noqonaynaa
marka waa soo buuxinay halkaa waxaa kusoo qorantay isla markiiba response inuu gaaray 3 anaa soo buuxinay marka waa ku dhufanaynaa waxaa arkaysaa inuu ku siinayo analysis symbol ah oo graphiskii uu kusoo bandhigayo oo mid kasta oo aad ku dhihin karto haddii aad u baahato inaad excel u bedelato oo data analyse-kaagii dad kusoo ururiyaan ka dhigto excel waxaa ku dhufan kartaa link sheet kadib wuxuu ku leeyahay waxaa abuurtaa new spreadsheet oo cusub oo google ku leeyahay oo loo yaqaan google sheet marka magacaan ku qornaynaa anaga waxaan u bixinaynaa test kadib waxaa leenahay create automatic wuxuu furayaa google sheetkii iyadoo excel form ah saddexdii waxay soo buuxisay daatadooda dhammaystirana halkaas nagu tusi doonaa waa kan wuxuuna tusay marka daatooyinkii aan soo buuxinay saddexdii ruux iyo daatada ay soo qoreen kadib markaan rabno inaan desktop-ka saarano waxaan dooranaynaa file kadib aan leenahay download markuu noo dhammeeyo isaga si simple ah aan u dooranaynaa inaan ka doorano excel caadi ah oo noo dhow aan ku dhufano marka file waxaan ku dhufanaynaa download kadib waxaa leenahay excel form automatic wuu noo dejinaa markaa iyadoo excel ah iyo halkaan noo dhigaa kadib aan qaadan karnaa oo la aadi karnaa software kasta oo analyze noogu samayn kara ayaan la aadi karnaa oo aan dhihi karnaa noo analyze garay intaas ku dhan yahay hadaa u baahato mar kale waa ku noqson kartaa isleeyahay saan u samaynay aad u mahadsantihiin waa idin salaamaya